صارية أيه واكنا سكيمو اسكو حرم كو واكنا هيا لابو سدح أفر واكايا سكيمي ودون اسكو حرم وفاتم وما سنتين دمانتين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ميل بعد شكتان سودو هذا كسودو هذا هيبة أوفيشيال. waxaan leeyahay hiba falaq official ku soo dhawaada marmara magacaygu ii gafaa waa garan waaya waxaan leeyahay waqti wal inay tahay imaan walba inay tahay wanaagsan aniga maanta waxaan joogaa gurigeyga kuma duubayo studio hore ayaan u sheegay gurigeygaan joogaa studio-hana waan ka gaari waayay because duruufo jira awgood ayaa uga gaari waayay horta waxaan arkay maxaa lahaayay meeshan oo heesaha lagu tartamo idaacada FM waxa la wadnaha FM oo loo furay dhalinyarta loo furay waxaan ku arkay wiil horta muddo ku arkay mana ka soo hadlin laakiin maanta waxa uga soo hadlay maaha xumaan inaan uga soo hadlay maaha wax kale inaan uga soo hadlay maanta waxa uga soo hadlay waxaan arkay sakiin soo afka gashanayo oo sakiintii waa la leqa hadana waa la soo jiidaa I don't know wallahi ma fahmi karo laakiin horta qof walba horta wuxuu xaqribad u leeyahay qof walba wuxuu maxay heedeen uu ku leeyahay macnaheedu uu ku wanaagsan yahay qof hadalku ku wanaagsan yahay qof jilitaan ku wanaagsan yahay qof maxay heedeen wuxuu ku wanaagsan yahay habka loo ciyaaro qof wuxuu ku qurux badan yahay sida loo heeso qof walba waxbuu ku wanaagsan yahay guriga dhisaayo guri dhisidu ku fiicay ka faryaamada ku fiicay because midka guriga dhisaayo waxa laga yaabaa ka guriga taagay ka safiitada ku dhijina inuu aqoonin si safiitada loogu dhijiyo because qof walba wuxuu ku dhaasay mid kale oo la joogo wuxuu leeyahay kana safiitada dhijinaya maxaa adiga ku dhacdaa guriga dhisay may aniga ma isku fiicin meeshaas mid rinjiga habka loo mariyo ka saayo wuxuu ku leeyahay ma aqaano sorry idan raalahaada xoogaa guriga maanta jooga hadii ciyaalka qayladooda inay dhabto ciyaal yariiriiso aan habaro ayaa iska jooga marka waxaan leeyahay waxaan arkay maanta wiilkaas ilaahay talent uu siiyay horta talentii awal hore waxaan arkay telefoonka saal dhahayo alaab soconays turubka la saara bahalaaba dhex soconayo anigaas hada la kulmi laada waa jareen la waa green la wala waa baqi la because freeda ani ahay waxaan arkay oo muuqaal kala arkay marka oo hadda muuqaalka waliba next ugu dambeeyay aan arkay marka aniga wallahi hib ahaanteeda waa baqa waa hada la kulmi lahaa aad aan baqi lahaa because wuxuu sameeynayo waxyaabo xad ka baxsan waaye muuqaalka hadda isla fiirsanayna xaaladda markii ugu war dambeysay shaqaalaha turubka soo saaray caaw maxaa la sameyn doonaa bismillah maahir ayaa la dhahaa horta waxyaabahan horta oo indhasracaadka maanta waxa uga hadlaa waxyaabaha oo indhasracaadka dunida waxa jirta waad aragteen dadka oo kuwa waxa jira hada tutorial iskilinaya kuwa baabuur isku jiidaya adduunweynaha caalamka lacag lagu siiyaa wiilkan hadda lacag lagu ma siinayo oo hadana talentigiisu soo bandhigay because qofka bilaadanka wixiisa ku jira inuu soo saar aad u fiican tahay uu soo bandhigay hadda wuxuu xiran yahay maskarati wuxuu soo xirtay aad ku daawateen sida filimka Krish oo Heritage Collection oo Krish filimkaas uu duulduulayo maskaratadu xiran yahay dabcan wiilaana u turjumaya gabadhu waxay dhahaysaa hadii oo telefoon bahal soconayo laga soo dhex saari jiray tolo maanta maxaa noo imaanaya horta wuxuu sameeynaa cunugan turubka lambarka qabsatay jeebkiisa waa sii jeedsanaysaa waa wax uu khibrad ku leeyahay lambarkii buu sheegaa horta gudiga meeshan jooga gacan u taageen ilaa hadda aan waa rumaysan lahaa laakiin dadkii la jooga rumaysan lahaa gudiga hadda markay u dhawaadaan way baqayaan ani markaa mid iigu la yaabka badneed waxay ahayd wax badan arkay laakiin waxa iigu la yaab badneed hadda sakiinta markuu laqaayo waxa jirta gabdho kale oo imaado oo meesha fanaanimo u imaado dad badan oo aan arkay jirta laakiin kama soo hadlin waxa uga soo hadli waayay because shaqooyinkii kala iska kay badnaa hasaata maanta waa ka soo hadlay oo waxa uga soo hadlay sakiin hadda waxa arkaa adar sii socota ala soo deynaa ku dhaadar
maanta keligii hadlaaya 10 daqiiqo inaan dhameysan waayo dhici kartaa because 10 daqiiqo xaggan hodanay ma fadhido qof kale ma ila fadhiyo marka sastraadeed inaan dhameysan waayo dhici kartaa asxaabay marka waxaan ni sheegayaa wiilkan waa wada aragteen sakiin uu liqaaya afkiisu ka soo saaraya ilaah weyn waaxidka waxa aan rajeyna horta inuu wax dhibaato horta qofka waxaan sameynaya wax badan oo dhibaato ayuu arkayaa wax badan oo dhibaato buu arkayaa asa ahaatee waa wax soo kaligiis horta gaar u ah qof walba maxaan leeyahay arta asxaabta waxaan rabaa inaan badiyo asxaabta oo hibo falaq oo fashiya waxaan rabaa inaan badiyo marka asxaabay waxaan kala yaabay wiilkaas wuxuu gelinaa sakiin oo afkiisa gelinaa waliba waxaan ku wuu liqaa 5 sakiimood way wuu liqaa markuu liqo hadana ka bacd wuxuu sameeynaa calooshii buu ka soo saaraa macnaheedu dunu la gelina dunta markuu la geliyo dunta qallamaya saan u saara marka aan waxaan ku arki jiray indha sarcaadada waxaan ku arki jiray dad midiye iskaliya dad oo caloosh dhexeysa dad 5 xabo oo midiye waxay gelin jireen indha sarcaad waaye marka hada wiilkaas waxaan dhigi karaa muqdisho wuxuu ka furan karaa meel weyn oo hatta indha sarcaadka because waxyaabahan oo waxyaabo loo baahan yahay waaye laakiin dadka ma aaminsan yihiin waxa la yaab marka fiirsaday dadka meesha joogan fiirsadeen dadku waa la wada arkaa hada gudiga arkaa makhraatiya loo yeelaa wixii wax beena maaha waxaas oo laga soo qaaday maaha marka dad badan waxa ku dhaqan horto magaalada Muqdisho aad iyo aad talent u leh hasa ahaatee talentigooda waxay ku soo bixin lahaayeen aan haynin haddana dad badan oo waxa jira sanadkan oo caanimadu waxay ka dhigeen wax xun ka dhigay waxa jira hada dadkii markii la dhaho qof walba markii la dhaacaan noqonaa qof walba markii la dhaho waa la soo magacaaba qof walba markii la dhaho waxa lagu sheegaa hada Soomaali Maxamed oo dhan waxay u wada socotaa caanimo Soomaali Maxamed oo dhan waxay u wada socotaa inay sameeyaan maxaa lahaye fan inay sameeyaan inay wax jilaan inay wax la imaadaan qof walba wuxuu macnaheedu sheegayna oo rajeynayaa inuu nolosha uu ka gaaro heer aad iyo aad u fiican laakiin waxaan rajeynayaa dhalinyarta Muqdisho ku dhaqan dhamaan rag iyo wiilal iyo gabdho aanu kala saareen caanimadu inay tahay wax oo qofka bilaadanka loo baahan yahay oo maxaa la dhahaye oo hadana si xun uu isku raadin si fool xun ku raadisid waxa la fartaada xumaata filqaaga ma arkato hadii si xun oo fool xun ku raadisid nolosha way kula sii xumaanaysaa hadhowna waxaan noqonaysaa qof ceebeysan bulshadina ka dhaxeeysan meel walba ka dhaxeeysan marka waxaan rajeynayaa dhamaan ninka isku wada waxaan rajeynayaa siiba gabdhahan la hadlaaya ninka ragga haduuba intuu iska bixiyo dharka uu iska socdo maxay hadin waxba laga arki maayo laakiin tii gabarheedu ceebeysan tii wiilaha lama dhahayo alla kii daraad qaawna wakaasa lama dhahayo cawrasagu maxay hadina cawra sax uu leeyahay ragga oo waa aragteen dhexda xudunta iyo lama arki karo markii maxay hadina cawra u tahay sidoo kale markuu salaad tukanayo inuu maxay hadina macmuus u dheer xiran ama suwaal inuu qabo kala waaye marka hadana waxa ka sii cawra badan dumarkii because dumarkii marna wayna dhaleen hooyadeen waaye walaasheen waaye anagii yaa wax sii dhalayna marka cawra waa leenahay anaga siiba cawrada u badan dumarka iska leh sanadka maanta gabdhaha waxaan rajeynayaa social media imaanaya oo caanimada raba inaysan si farxan ku gaarin war adduunkaaga aniga hiba ahaan waxa la dhigi jiray hibo miya waxaan xiro waa ku kala kacay wallahi saasa noqonay madax adeegayga wallahi maanta inta xagga u taaganahay hadaanan dad badan hadda oo commentiga ku soo qoray 17 ma taagnaan lahayn marna 17 ka tagi lahaa boqolaal bilyan hadda sii mar lahaa wuxuuna hadda la imaanaa laakiin wuxuuna hadda la imaado familkiga ceebeysan wiilka aniga aan dhalay ceebeysan gabadha aan dhalay baa ceebeysan just familkeena dil la dhaho gabadhiina hadda saasay noqotay family walba hal shakhsi ceebeeya waxa ka sii daran ilmaha yariiska la dhahayo waraadi hooyada ma arkin oo saasay hadno saac la dhahayo waraadi hooyada ma arkin oo gabadhi la dhahayo waraa hooyada saas awalba ahaan jirtay adigana sidoo kale ku socotahay socono geed walba dheecaankiisu dhalaay muxuu gabadha ay sameeyeen wada xunay qaadeen oo isqalda ilaa waa lagu caynaa 4 saac moogta hooyada sa ahaan jirtay adigana si socod dhaha marka waxaan rajeynayaa gabdhaha Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogan ama fanaanimaha jeclaadeen ama riyo rajaha lahaadeen riyada iyo rajada sida hibo kale 17 ay sadhaafeen ana riyada rajada inaan wax jilay ahayd inaan fanaanad noqday ahayd inaan dadka laga dhex aqoonsaday ahayd
maantana maxay dadku waa laga dhex yaqaana oo hiba la dhahay jidka marka maraayo ilmaha shinjirkaaba ay yeera saasoo dad badan waxaan arkay commentiga 17 wallahi way iga badan 17 kun oo bilyan way iga badan tahay because sharafan ku haystaa 17 kun oo bilyan way iga badan tahay dad 80 maraay 90 maraay 100 dad sii maraay oo maxay hadeen oo anigi qof markaas agstaagno aan waxba isdaamin oo maxay hadeen aan isla nahay عادي عسلو أنا هذا محي هذينا قاب فالحن أو كسب بحي أنا رمينا كسب بحا مركا حرجينا يا حتى talent كان كهلايو ماشي أنا أوجد دللا حتى أنا أنداونا talent يا كجرته مركا لعجل وسيا دوينه لعج ولا فنكريا هذا ويل كان سكين تان أولقي وحلقي يابا إن سرعات كيسو أي كهلاوده وهذا meesha waa u jeeda dhuntii kacad iyo kamado marama inay hada meel yariis oo khatar ay ku tahay meel yariis inay ka taabataa dhici karta isaguna waa wax uu macnihii uu ka soo shaqeeyay uu muddo ku dhex jiray oo guriga la dhex joogay marka lacagna ma lagu siinaayo hada fiiri content iyo wuxuu marayaa content iyo 6,000 oo views marayaa isaga magac uu hada ku yeeshay wiilkii maahir la dhahayaa laakiin qofkan hada YouTube-kiisa soo saaray content iyo 6,000 uu ka shaqeeyay 2 days ama 3 days uu ka shaqeeyay 3 maalmood 2 maalmood uu ka shaqeeyay lacagtan oo tirada ka badatay uu ka shaqeeyay isagana magac oo hada ku yeeshay oo lacag ma qaadanay laakiin adduunweynaha magacna uu leeyahay lacagna uu qaataa marka waxaan rajaynayaa dhamaan wiilasha oo talentiga jecel iyo gabdhaha talentiga jecel waxaan u soo jeedinaa aniga hiba ahaana maanta waxaan u soo jeedinaa in ay si sharaf badan ama ixtiraam badan in aad noloshiina ku gaadhaan iyo future-kiina iyo mustaqbalkiina ayna family-kiina wax yeeleen waxa adi aad dhasheen wax yeeleenin hadan waxaan igu soo gabagabinayaa anoo hiba falaqfalaqa ma dhameystiri karo muuqaalka maahir ayaan ku dhameystiranaynaa muuqaalka oo wiil talenti lahaa iyo rajale maahir waxaan ku leenahay hore u soco anagoo tiin hiba falaqfalaqa dhammaan meel walba aad joogtaan hore u socdaan dhammaan meel walba aad joogtaan tiinkii sidaas iyo nabadgelyo